halkan wuxuu leeyahay Soomaaliya sheekh ma la dhihi karaa waxay ku sii socotaa wadadii Andalus ay ku luntay ka jirta dhibta ka jirtana dadkeeda geystay dadku waxay jecel yihiin inay cid kale eeda saaraan dadku waxay jecel yihiin inay yiraahdaan Ethiopia ayna jabisay waxay jecel yihiin inay yiraahdaan galada inoo tashatay oo Mareykanka iyo Ingiriiska meena waxayna la rabaan baad moodaysaa iyaga ayna qaybinaya waxay jecel yihiin inay dawladaha jaarka China maxaa la yiraahdaa Kenya iyo kuwan bayna baabiyay waxa kama jiraan runaa soo sheego inaga isjabinay markaynu jabnayna waa laynaga faa'iideystay waana sida caadiga bini aadamku u fakaro Ethiopia maxad dantaada u raacatay soo doqonnimo ma aha inaad la timaado meesha Ethiopia maxad dantaada u raacatay waa doqonnimo Ethiopia masaalixdeeda ilaashanaysa wixii dan ugu jirto laakiin aanay ahaydin in maslaxadayda ilaaliyo joojiyo Ethiopia waxaan aniga maslaxadii ugu jirin ana ahaydin aan dantayda ilaaliyo joojiyo Kenya waxa ay wada hadaan maslaxadii ugu jirin ana ahaydin aan dantayda ilaaliyo Mareykan iyo Ingiriis baan joojiyo waxay wadaan hadaan dan ugu jirin Nabi Muhammad iyo saxaabadii markay jabaan lama oran Khalid oo xariifa idin helayo intuu dhabarka idin kaga dhuftay dabeetana wuxuu sidaa idin la dhigay lama oranin markay jabaan markay iyagu taktiigii nabiga khilaafeen ayuu Khalidna godololada arkay dabeetana uu ka faa'iideystay Khalid oo gaala ayaa wuxuu arkay godololada dabeetana meeshii dalosho ka soo dhacay muslimiintu tarab u dhigay dabeetana saxaabadii waa weyneed la yaqaanay nabiga adeerkii waa markii la dilay Hamza iyo ragii la mid ah dhulka loogu tuuray markay muslimiintu yiraahdeen anna haadana ilaahi baa u jawaabo wuxuu ku yiri qul huwa min indi anfusikum qul huwa min indi anfusikum Malik ibn Nabi nin loo oran jiray caalim muslim oo dhintay ayaa wuxuu oran jiray isticmaarku ma aha mushkiladiye waa qaabiliyatul isticmaar bulay ninkii gumaysiga aqbali karaa la gumaystaa bulay gumaysigu walkii boo iska jiray cid rabtay in cid gumaysata way iska joogtay nin la gumaysan karo baa la gumaystaa Soomaaliduna maxay yiraahdaan miskiin baa miska la fuulo leh markaad miskiinka noqoto ayaa dadku ku kooraysanaya marka Soomaaliya meel fog dhib bay ku jirtaa dhab weeyaan taas laakiin dhibta Ethiopia ku haysa mise Kenya ku haysa mise Mareykan baa ku haya mise Caynkan baa ku haya waa dhibta inaga isku hayna inaga isjabinay inagana wali istilayna inagana rabna wali inaynu kala guurro inagaan tuulada ku xigta heshiis la ahayn tuulada ku xigta heshiis lama aha inay ka guurtaa bay doonaysaa marka hadaynu inagu aqal keeno lagu wada noolaan karana waynu dib u noolaan karnaa wadankeennina waynu joognaa waanaynu noolaan karnaa hadaynu aqli keeni weynana dawladna gumaysanaya adeer ninkan tashanayna waa loo taliyaa carruurta yaryar ma tashan karto marka waa loo taliyaa reer galbeedku waxay yiraahdaan dunida badhba wisaaya u baahan isma maamuli karaan in la maamulo u baahan marka ergeyga jamciyadda quruma ka dhaxaysa la inoo soo diraya sidoo inoo la eego bal inaynu ismaamuli karra iyo waxaynu gaadhnay inay wax saxayeen iyo dhaqaalaha inuu u baahnay inuu kolba barino dhaano askartiina wax ma yeelin qoladaasina wax ma yeelin la yiraahdo fanka la idinku daraya projectka sanadka dambe EU da idinku daraysa ama USAID baa la idinku daraya warsi cidina kuma noolaato dadna laguma noqdo warsi cidina kuma noolaato dadna laguma noqdo warsi masaakiinta ku dhargi lahayd hadii cid ku dhargayso miskiinkan yaa la waxsiiyay dun haya imisun buu lahaa yaa la waxsiiyay marka waxaan uga jeedaa Soomaaliya waa burbursantay dhibina way haysataa laakiin aniga aragtidayda dhibteedu ma aha gaal baa soo duulay dhibteedu waxa weeyaan aniga iyo adiga iyo adeerka iyo ka sii dambeeyaan isdoonaynin hadaynu inagu aqligu lagu wada noolaado keeno gaaladu waxay yiraahdaan saddex dariiq baa jiro oo bini aadamku uu kala baxo bini aadamku inuu iscafiyo iska heshiiyo cid la yiraahdo nabad waa lagu kala baxaa bini aadamku inuu musaalaxa galo win-win solution waxay gaaladu yiraahdaan
intuu isu yimaado inuu heshiiyo yidhaha war balannaan guulaysta adnaad guulaysatide adna wax ka tagaanaan wax ka tago meel dhexaan isugu nimaadno hore u soconnana wuu kari karaa bini aadamku inuu garramana waa lagu kala baxaa waar heshiin weynaye ha laynoo garqaado ilaahay kitaabkiisa cid inoogu saar inoogu garqaada marjaca waxa la isku garramayaan isku waafaqno dabeetana aan garranno kala baxno haddaynu soomaalinay saddexda midna ma ogolin inaynu iscafino iska wada noolaano ma rabno inaynu win-win solution compromise samayno ma rabno inaynu garranno ma rabno laakiin maxaynu rabnaa inaynu ismuquuninno inaynu weli rabnaa caqligu inuu shaqeeyo ma rabne weli waxaan rabnaa in muruqu shaqeeyo maalinba ninkeenna waxoogaa dabaabado yaro rooni inta kale inuu yidhaahdo ma idinkaa wax sheegi karaa maalinba ka laga yaro dabaabada roonaada inuu yidhaahdo maaday gumaysan karaa anna waan jabhaday marka waa un halkeennii baynu ka wadaynaa sidii baynu u wadnaa 25 sano ama 6 sano ama 30 sano la sheegay saa baynu ku wadnay marka waxaan ku soo koobayaa gaalayna ma haysto cid kalena ma haysatay inaga haysanee haddaynu inagu caqli keennana waynu jiri karnaa haddii kalena dee waa laynoo talinayaa ee aqbalaya in laynoo taliyo waxba Itoobiya ku xagxaganina ama Maraykan xagxaganina in laydin taliya aqbala wallahu a'lam barakallahu fiik wajazakallahu khayran سؤالًا وكسو جبنا إن شاء الله سؤالها وقت وإسكا دير إيو حل دنبقى يا شيخ وما أنت مرنا سفر مرنا درس كتيري وحلي سائل كني ودمدا قربها ودن كمدا أو قالاء سياسيين تيسا مكبيرة كرا أما دادك السياسات تيسا كتيرا مكبيري كرا أو حلمك قبن كرا مدحمك نغن كرا أيها الأحبة warkoobana aan idin sheego waxyaabaha aynu maanta isku haysanna waxa ka mid ah waynu isaqoonsan weynaa ama waynu diidnay in cid walba loo daayo waxa garanaysa anu macallin baan ahay macallinka ma taqaanay macallinku waa nin daris soo diyaariyo dabeetana si fiican u sheega macallin baan ahay muftimayhi culimadiina fatwoota hal la weydiiyo wixii mas'ala fiqiga qabtaan wallahu a'lam